السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أصحابي ميل كستو naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. Saaki waa Jimce, mar kale waxaan idin leeyahay Jimca Mubaarak. Waxaa ka bilowday maantay aas qaran oo loo sameynayo Ayatullahigii geeriyooday ee Iiraan, dalka Iiraan. Haddaba wiilkii uu dhalay oo iminka ah Ayatullahiga dalkaas ma ka qayb gali doonaa mise kama qayb gali doono? Wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa. Waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa xalay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay fariimo u kala direen shirkadaha iyo dadka iskale maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada ee doonaya inay maraan Hormuz. Haddaba maxaa isbedelay xaaladda Hormuz oo kacsan? Saakay ayaan mar kale warkeeda idin hayaa. Israa'iil oo la sheegay qalab military inay ka dejisay magaalada Muqdisho. Warbaahinta Carabta oo si weyn uga hadlaysay saacadihii la soo dhaafay arrinkaas. Turkiga oo lagu soo qabqabtay dad la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ah xilli dalkaasi uu u diyaar garoobayo martigelinta shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO oo ay ka qayb galayaan madaxda gaashaanbuurtaasi oo uu ku jiro Trump. Haddaba waxaynu ku bilaabaynaa saakay waxaa aada loo adkeeyay ammaanka dalka Iiraan. Haddaba saakay waxaa ka bilaabanaya dalkaas maraasimu tashyiic wax la yiraahdo oo ah aas qaran iyo duco oo loo sameynayo Ayatullahigii dalkaas muddada dheer madaxda ka ahaan jiray ee ay Mareykanka iyo Israa'iil dileen dabayaaqadii Febraayo dagaalkii Iiraan iyo iyaga dhex maray. Ayatullahigaas oo lagu magacaabi jiray Ayatullahi Ali Khamenei ayaa loo sameynayaa aaska qaran iyadoo fursadii ugu horeysay ee la helo aas qaran in loo sameeyo ay hadda Iiraan tiri waa hadeer. Intii kale waxaa socday dagaalo iyo dhibaato. Haddaba maadaama wiilkiisii uu yahay mid ka bedelay hadeer Mujtaba Khamenei, isagu miyuu ka qayb qaadanayaa aaska qaran ee loo sameynayo aabihiis? Waxaa sidoo kale aaska dadka la xusi doona ku jira oo odaga la dhintay xaaska uu qabay Mujtaba Khamenei. Midka hadda Ayatullahiga xaaskiisi ayaa la joogtay odaga sodogeeda marka la dilay iyo gabar yar iyo dad kale la dhintay. Haddaba maanta marka maxaa dhacaya? Maanta waxaa ducada iyo aaska qaran loo ogol yahay marti fara badan ayaa meelo kala duwan Iiraan isaga timid. Martidaasi ayaa waxay maanta sameynayaan iyaga ayaa ducada iyo baroordiiqda sameynaya odaga dhintay, Allah u naxariistay. Kadib maalmaha kale ayaa Sabtida bari iyo Axadda ayaa shacabka loo fasaxi doonaa. Kadib waa la qaadi doonaa, waxaa la geyn doonaa magaalada diimeedka Iiraan ee Qum. Kadib waa la soo qaadi doonaa Iraaqa, la geyn doonaa meesha shiicadu ay markaa tagaan oo Karbala iyo Najaf. Kadibna waa la soo celin doonaa, kadibna waa la aasi doonaa 9 bish. saas ayuu jadwalkiisu yahay. shalaan ka sheekeynay. Marka saakin marka maxaynu ka hadlaynaa? wiilkiisi miyuu ka qayb qaadanayaa mise kama qayb qaadanayo? Haddaba markaan idin tuso, mas-uul ka tirsan Iiraan ayaa sheegay in Mujtaba Khamenei Ayatullahiga dalkaasi aanu ka qayb qaadan doonin maraasimu tashriica ama aaska qaran iyo ducada ee loo sameynayo aabihiis sababo la xiriira dhinaca amniga dartiis. Haddaba wakiilka Ayatullahiga Iiraan u fadhiya dalka Hindiya, ninka lagu magacaabo Ayatullahi Hakim Ilaahi, ayaa sheegay in Ayatullahi Mujtaba Khamenei aanay u suurageli karin ka qaybgalka inuu ka qayb qaato aaska qaran ee loo sameynayo aabihiis Ali Khamenei sababo dhinaca amniga la xiriira. Haddaba Ayatullahiga wakiilkiisa ku sugan Hindiya ayaa wuxuu sheegay isagoo u waramayay mowqica ama wargeyska la yiraahdo India Today in markaasi ay jiraan weli khataro ku iman kara Ayatullahiga, sidaa daraadeedna sababo amni ay markaasi
uu uga baaqday inuu ka qayb qaato aaska qaran iyo ducada loo sameynayo aabihiis. marka maxaa leeyahay odaygii aabihiis ahaa aaskiisii qaran ee loo sameynayay kama qaybgeli karo. ciidamada ayaa yidhi may mamnuuc waaye, weli khataraa jirta, wax kastay nimanka kanu samayn karaan. marka isagu marka uma suuragelaysaa la leeyahay. marka saakay hawshaas ayaa ka socota, iiraan ka bilaabatay. xalay ayaa waxaa la leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay fariimo u direen shirkadaha iyo dadka iskale maraakiibta waaweyn ee xamuulka qaada, weliba kuwa shidaalka qaada ee mara Hormuz. dhagihiina furaa la yidhi, markab aynaan amrin, aynaan u ogolaan inuu maro, hadduu isku dayo inuu maro si fiicana u dejinaynaa layidhi, waa qarxinaynaa. awal xoogaa digniina meel yar kaga dhufay ahayd kowdha, laakiin hadda waa la dejinaa layidhi. walaa maraykanaa naga kiin celin karin, cid kalaa naga kiin celin karin, meeshaan annagaa ka talina. markaan rabno ayaa soo maraysaa, meeshaan markuu niraa maraysaa. haddii aad iska kaana dhaga tirto oo qolooyin kale ku yidhaahdaan iska soo mar, yaa weylak, ogow wixii kugu dhaca. warkoodu marka waa cad yahay iiraan. haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey, wargeyska la yidhaahdo asharqul awsad ayaa saakay qoray warbixin uu leeyahay iiraan waxay u hanjabtay maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada ee isku daya inay khilaafaan, inay maraan Hormuz. awaamiirta iiraan inay khilaafaan isku daya. haddaba marka warbixintu way sii socotay, waxaa leeyahay iiraan ayaa gelinkii dambe ee khamiista shalaytu waxay soo saartay war toos ugu socda maraakiibta waaweyn ee qaada shidaalka ee maraya marinbiyoodka Hormuz, waxayna u digtay kuwa doonaya iyagoo aan amar ka qaadan inay iska maraan iiraan. waxayna u sheegtay in khatar weyn ay halkaa kala kulmi doonaan. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan ninka la yidhaahdo Kadhim Gharib Abadi ayaa sheegay heshiiska in ay markaasi qayb ka tahay in aan lagu xadgudbin inay iiraan iyadu maamusho, waxaana qaybaha heshiiska isfahamka ka mid ah lagu gaaray Islamabad arrintan. marka nimankanu marka waxay leeyihiin meeshaan cidaan annaga ahayn oo amar looga qaadan karo male. warkoodu waa cadyahay nimankan. hebel xaalkiisu meel u dhigtay calankiisa bannaanku ku mutay ma maqli jirtay. bannaanku ku mutay waxa waaye ciduu ka cabsanaa male. iiraan waxay leedahay war ninkii iswaala oo warkeenna jabiya haddee yaa weylak, adigay kuu taalaa sheekh. marka meeshaa ka dhici lahayd adaa lagaa rabaa. marka digniinahaasuna way jiraan. saakay maraakiibtii way cabsanaysaa, inkastoo isfaham uu jiraa la leeyahay. shirkii ugu dambeeyey dooxa iyo waxa kan iyo waxaas iiraan ma qorto. iiraan waxaan mar horan ku heshiinay taaganta qodobka 5 heshiiska isfahamka Islamabad Switzerlandna la isla tegay ayaa noo ogolaanaya meeshan inaan maamulno. marka haddii maamulkaasi la isaga daba yimaado heshiiskii la jibiyey, marka xaalka halkaasuu marayaan. haddaba marka sheeko kaloo cajiibaa jirtay oo ilaa shalay oo dhan socotay, ilaa saaka xataa aan ku arkay warbaahinta carabta. waxaa leeyahay Israa'iil ayaa waxay qalab ka dejisay military airportka Muqdisho. haddee maxaa markaa warbaahinta ay aada uga hadlaysaa? waxaa la ogyahay halka ay kala joogaan dowladda Soomaaliya iyo Israa'iil. Israa'iil waa tii dhowaan Soomaaliya qayb ka mid ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya ayaa ninkaa ka hor timid. arrinkaasu marka inaanu fiicnayn. marka qalabkan beesha laga dejiyey waxaa leeyahay qalabkan wuxuu noqon doonaa, laga baqayaa qalab ay isticmaali doonaan oo ay leeyihiin mukhabaraadka Israa'iil, laakiin magaca UN-k lagu keenay. xalana meel la yiraahdo iyo meelahaas alaabtaas UN-k keensadaan lee meesha ku rakibanayaan. marka
waxa ugu weyn oo marka laga baqaa marka maxay dowladda Soomaaliya wax gooni oo hadda waxay leeyihiin warbaahintu waa dowlad iska tabar daran oo wax gooni oo laga basaasa male laakiin meesha airportka ayaa waxa ku sugan Turki diyaarada F-16 Turkida taala waxyaabaha Turkida marka meesha alaabta sidaas UN iyo alaabta asaasa lagu soo galaa lagu leeyahay meesha marka waa sheeko cajiiba haddaba marka hore aan idin tuso warbixinta waxa leeyahay warbixin ay uu qoray telefishinka la yiraahdo Al-Mayadin oo marka telefishinada waaweyn ee Carabta kamida ayaa wuxuu leeyahay xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho ku yaala ayaa waxa loo geeyay qalab isgaarsiin Israa'iil ay soo saartay oo horumarsan haddaba shixnadaasi waxaa la sheegayaa in markaa halkaa ay gaartay haddaba qalabkaasa meesha la geeyaa la leeyahay haddaba marka waxa aad u soo akhriyay arrimahan oo warbaahinta waxa ay ka qoreen aad ula socday suxufiga la yiraahdo Maxamed Cali Shuute oo jooga Mareykanka Shuute soo dhawow inoo soo koob waxa akhbaara ee sheekadan laga qoray waa mahadsantahay ustaad Cabdiqaadir Nadaara adiga iyo daawadayaasha Nadaara TV magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo gaaray shixnad qalab oo laga shakisan yahay oo la aaminsan yahay in ay ku jiraan waxyaabo sirdoon ah iyo qalab military marka wararku waxay sheegayaan in shixnadaasi oo miisaankeeda uu gaarayo 1,000 kilogram ay soo gaartay 22 bishii Juun ee soo dhaaftay caasimadda Muqdisho waxay ka timiday caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv waxay soo martay Nairobi waxay ku socotay magaca xafiiska UN-ka marka sida ay sheegayaan macluumaad ay warbaahinta heshay shixnadan ayaa waxay ka koobneed qaybo fara badan oo qalab isgaarsiin casri ah oo horumarsan oo runtii ka kooban waxyaabaha loogu talagalay sirdoonka iyo militariga qalab loogu talagalay ayaa shixnadan ka koobneed sida la sheegay marka shirkadii soo dirtay waxaa la yiraahdaa shirkadda Mir ayaa magaceeda la yiraahdaa waxay qaabishan tahay dhinaca ammaanka iyo isgaarsiinta xarunteeda waxay ku taalaa dhulka reer Falastiin ee Yuhuuddu ay haysato marka sida ay sheegeen ilwareedyada xafiiska ilwareedyada waxay xaqiijiyeen in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho inay tahay dhinaca gacanta ku dhigtay qalabkaasi isgaarsiinta casriga ah marka macluumaadkan ayaa waxay imaanayaan iyadoo dood iyo cabsi badan ay ka taagan tahay joogitaanka Israa'iil ay joogto mandiqada geeska Afrika iyo badda cas marka gaar ahaan Israa'iil waxay ku dhawaaqday dabayaaqadii 2025 inay aqoonsatay maamulka Somaliland sidoo kale arintaasna waxaa gaanshaaka u daruuray dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna ku tilmaamtay arintaas i'tiraafka Israa'iil ama Yuhuudda ay aqoonsateen Somaliland inay tahay mid qarannimada Soomaaliya wax u dhimaysa ama ku tumanaysa iyo midnimada gobolka oo dhan marka arintan waxaa doodo badan ay ka dhalisay golaha ammaanka qaramada midoobay UN-ka digniino fara badan ayuu arintaasi dhibaatada ka dhalan karta ka soo jeediyay iyadoo loo baqanayo badqabka amniga ama security-ga geeska Afrika iyo badda cas marka waana arinta ugu hadal haynta badan ay wax ka qoreen warbaahinta iyo telefishinada ee caalamka ustaad Nadaara waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suxufiga la yiraahdo Maxamed Cali Shuute oo inoo soo koobayay warbaahinta wixii ay ka qoreen sheekada ku saabsan qalabkan laga dejiyay garoonka Muqdisho sida la leeyahay oo warbaahinta ay shalay ilaa maanta aad uga hadlay
qaybta kale ee barnaamijka aynu kusoo qaadanaynaa waxay noqonaysaa turkiga ayaa waxaa ka dhici rabaa maalmo kadib shirkii ay ka qaybgalayeen madaxda gaashaanbuurta nato. waxaa xataa tegi doona Trump oo sheegay markii hore inaanu qorshiisu ahayn inuu tago, laakiin isagoo ixtiraamaya ninka la yiraahdo Erdogan oo saaxiibkiisa inuu halkaa shirkaas sidaa uga qaybgali doono. haddaba marka shirkaasi mas-uuliyad weyn ayaa dowladda turkiga ka saaran. hadda waxaa leeyahay howlgalla ballaaran ayay ciidamada amniga qaybooda kala duwan ka wadaan dalka turkiga, waxaana la sheegay in lasoo qabqabtay rag sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ee la yiraahdo Daesh. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsat wuxuu leeyahay turkigu waxay xabsiga u taxaabeen 10 ka tirsan Daesh ka hor inta aanu bilaaban shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee halkaa ka dhici doona dhowaan. haddaba saraakiisha amniga turkiga ayaa waxay bilaabeen olole ballaaran oo markaa kooxdaasi argagixisada ah lagula dagaalamayo. haddaba waxaa la sheegay in halkaa lagu qaban doono shirkii 36aad ee gaashaanbuurta NATO oo Ankara ka dhici doona maalinta Talaadada ah ee soo socota. waxaana la sheegay in hadda hawshan amniga ah ay wadaan ciidamada wadankaas. ciidanka ka hortaga argagixisada ee wadanka turkiga ayaa sheegay inay magaalada Istanbul qaybo fara badan ay galeen, iyagoo la sheegay 43 goobood oo kala duwan in ay galeen oo xataa ay ku jiraan 2 masaajid. waxaana la soo qabtay sida la sheegayo 39 qof oo markaa iyagu markaasi ku eedeysan inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada. marka ololahaasa isaguna ka socda dalka turkiga maadaama Talaadada shir madaxeedkii gaashaanbuurta NATO ee 36aad uu halkaa ka dhacayo. wararkaas ayaynu kusoo qaadanay barnaamijkeenii ugu horeeyay saakay oo Jimco ah. haddaba wixii kaloo soo kordha haddii alla idmo barnaamijyadeeda kale ayaan idinkula socodsiin doonaa. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan, nabadgelyo.